madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu safar ugu kicitamay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxay ka duuleen gegida diyuuraduhu ka hadaan ee magaalada Hargeysa Cigaal International Airport. madaxweynaha oo intii aanu dalka ka dhoofin ka hor qolka nasashada ee madaarka Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka waramay asbaabta uu la xiriiro safarkiisani. waxa uu sheegay inay wadanka wada hadal ku yeelan doonaan madaxda ugu sarsareysa dalka Soomaaliya. waa kan madaxweyne Siilaanyo ugu horeyn ka hadlaya waxyaabaha ay ugu socdaalayaan magaalada Istanbul. halkii ay danta iyo maslaxadu inoo tilmaantana inaan looga yeedho waa tegayna. halka waa ogeydeen wadahadal badan baa meelo badan looga yeedhay. Ingiriiska ay ka mid ahaayeen qaybo badan bay ka qayb galay. meelaha ay ka dows qabsaneen way jiraan sababtoo ah way inoo cuntabi waayeen oo waxay nagu muuqanaysay meel aan inagu wadahadal buuxa oo ay ku sameeyaan aan ahayn. halka ayaan maanta tegaynaa wadahadaladii ayuubaa inoo furmi doona insha allahu tacaala. dan iyo maslaxad baana inagu jirta. wafdi ballaaranna waa ku tegaynaa oo madaxda axsaabta ka mid tahay oo ra'iisul baarlamaanku ka mid yahay oo muxuu ahay mas'uuliyiinta qaranka iyo dowladda xubno ka tirsan ay ka mid yihiin. marka insha allahu tacaala waxaanu inoo rajaynaynaa inaan halkaa inaan wixii qadiyadeena ah. dhinaca kale madaxweynaha oo wax laga weydiiyay ogaanshiyaha uu ka haysto madaxweynaha Soomaaliya oo ilaa hadda ka hadal wada hadalada ay ku yeelanayaan dalka Turkiga, Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay madaxweynaha Soomaaliya wax laga weydiiyay ma ogi iyo suuqa jawaabtoona ma ogi, laakiin waa laynaga martiqaaday meesha. mar haddii laynaga martiqaadana waynu tegaynaa inagu danteena sideed mashruuc u sheegnay maslaxadeena ayuu ka sheegaynaa meel kastana ugu fadhiisana meel kastana ugu maray. waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu sheegay in meel walba ay gasho danta qarannimada Soomaaliland ay ka doonayaan. Ali Mahdi Jibriil Xasan.